iyo hiirad marka la isku daro qabiilaadka degaahay way ka badan yihiin sodoyahay waay sodoyahay qabiil hal qabiil oo kamid inuu arqalayo ee maalin walba arqalada u taagan yahay waa dhibaato anaga nagu filan nimanan ayagu isjeclayn annagana jeclayn umada la degtanaan jeclayn anagu bir loo wada ma naqaan ilaahay xal u keenaan leena anagu haddaan nahay reer Shabeellada Dhexe joohur waxaan ku soo dhaweynay Cali Cabdullaahi Cosable waa ku caleema saarnay waana ku jeclayn waana ku faraxsanayn ninkii saas ahay wuxuu ka hay waayay beesha uu ka dhashay xilki ayagii uu ka hay waayay ayagii nimanka uu ka dhasho xawaalada maxamed uu ka hay waayay ninka la yiraahdo asagii arkay u direen waara ilaahay noo keenay nin wanaagsan oo noo ahaa nin fiican oo ahay haddana waa jeclay xilkee ayagoo uga soo naqa waayay ayagoo uga soo naqa waayay waana ognahay weeraradii ay ku qaadeen waare nin odaya oo macquula oo siyaasiya oo ahlu sharafa oo rag dhalaa oo qeyr iyo sharaf badan u ahaa waana niman ku amaanayna intuu xilkaay haddana kuma jiro dhibaatada socota inuu ka bariyahan aaminsanna Cali Cabdullaahi Cosable tolkiisu ka hiwaay markii hore haddana ma saga ka haylaana waa dhib kale waxaan rabnaa haddaan nahay gobolka Shabeellada Dhexe annagu laba madaxweyne soo dhaweynay waxay ahay xawaadle maxamed walaalaheenay ahaayeen waa ku sharfaynay walaalaha soo dhaweynay noo ahaayeen maanta haday yiraahdeen Cali Guudlaaw Xuseen beledweyne lagu soo dhaweeyma beledweyne ayagu iska male Soomaaliya ka dhaxeeya beledweyne ayagu male Calina waa tigi doona hadii Ilaahay doono waxaan kaloon rabnaa waxaan daaranahay nin la yiraahdo Cabdullaahi Goodax Barre waa nin odaya inta xadna marka khaatuma inuu maalinba dawladda oo naan ku jirin inuu caayo sax ma aha wuxuu yiraahday Cali Cabdullaahi ninka la yiraahdo Cali Guudlaaw Xuseen wuxuu yiraahday cilmi ma la reebaadiyo wallahi wa xisaabtamaysi adi cali wa xisaabtamaysi وحسابتميسين وحسابتن عبد الله جودح بر علي جودلا ولا صور كينا أقونت الله هي مدولينا ولا سبب بريق دورة علي جودلا وحسين وانين أن إبت كيس كشرف يعلاس بدن أنت أنكر نقام ولقي سقفوا عائلة ما أرك قفوا معارضة لما أرك ولقي وناك يشرفوا كشغل جري هذا أنا وأتاجيه على نكلا يراهدو عبد الله جودح بر waxaan rabnaa waxa nin weyn oo wasiira oo xildhibaan hadda ah oo golaha shacabka ka tirsan ayaa tahay waxaad ku matashareer hiiraan kursigaas dadkana ka maragsanadiina waa lagu yeelay waa laydin yeelay wax laydin yeelaa hawadiida ka baxshay reer hiiraan idinka hordada ka kacashay gobolka Shabeellada Dhexe idinka hordada ka kacashay garabkiina Allah gal marka waxa laga helaa leeyahay waxaan baaq u dirayaa ninka la yiraahdo wadaadkan Janaal Xuud la baxa Janaal inuu ahayn isla ogyahay unukuna waa ognahay shubka khaatumada ilmaha geela idin ilaasho wada ka fidnay ilmihiisi Yurub ay u jiraan yow idinka balaayeen ilmaha xawaadle maxamed farinta sufara yow ilmihiisi ka fidnay waa 9 jir masaajidka gafay 9 jir masaajidka gafay waay واسقاش جير مساجد كجفاي مساجد وقف عياي قريسه مساجد wadada u dhaxaysa qodxa laga xaaro haduu weerdu cadalay سقاش جير مساجد كجفاي waay ilmaha geelidiin ilaalisha yowda ka fidaynin wayga talo reer hiiraan dhabaamaayaan dagaal lagu lama aado reer Shabeelle dhabaamaayaan dagaal lagu lama aado Shabeellada xadamaame dagaal lagu lama aado hay kullu go'ina xawaadle maxamedow tala odayaan siinaya tala odaan siinaya عبد الله ولا الحساب تبع قونت علي إيه تيسا لسبر برديق الدورة كو لابو دوغان حود لليه وابحودي
ha iska seexda sariirtiis ilmaha geel idiin ilaasha oo xoolahan dhalahood mataqaanaa adugsatiin idiin ilaaliyo wada ka dhumin wallaahi oo bilaahi oo tallahi inuuna buurihi oo ka boodin adoogaas waa yeelkaas hore iyo gadaal horeyaa u dhow adduun aakhira waaye adduun waa gadaal aakhirna waa horay wallaahi hore gadaal horaa u dhow 9 jir dagaal ku baaqaay tawfiiq ma waafaqsanaan leh waxaan idinka rabaa علي واي ماها بلد ويني وحنوغو ماها 14 قبيلة دكت بلد ويني هل قبيلة نكتهين حوالله ويدن دورينا وحان اوغنا wax badanood ka shaqayseen waxaan ognahay inaad tiraadeen imaanka iyo ugaaska abgaal imaam karaan belad weyne waxaan ognahay beledki labada dhinac ee webiga labisa dhinac kale inay isaga degteen idinkoo dhinac bari mataqaana ka dhowraay ee dagaal kula tasho waa niman sabxooleeye oo duubaba duubna in la sharfo u budan yahay ee in qoryeegana laga hortaga ma mudna waa idin haydnaa madaxweyne waare waxaad ka celiseen meesha la yiraahdo ay sheeg jawiil tigi may sida tiraadeen asad wiilna ku disheen kura dhaawacdeen waa la idin haayaa inaan la idin moogaha ahaan hadda waxaad ka shaqeeysiina waa la idin haayaa xawaale maxamed inay xukumaan Hirshabeelle kaligoor madaxweyne ka naqdan kan kuma qorra Soomaali kaasay ku heshiisay walaha isku ogtayna waxa ku dhex jiraan Soomaali u dhaqana kitaab Allah kuma taal anagu islaamaanahay kitaab Allah nooguma taal kana nooguma taalanday waxaad ka aqalgaad iska dhaadhiciseen wax shaqeeyay ma bini aadamku waxa rabaa inuu wax saliim oo sax iska dhaadhiciyo war hadda idinku jeclayna oo ugaaskii Soomaaliyeed ee Soomaaliya waab kuga jirtay ugaas Xasan ugaas Khaliif haddaad adik aflagaadaysiin oo dhibaataysiin oo ugaaska jaraaf u dhigaysiin oo nin la yiraahdo Yusuf Ahmed Yusuf hagar daba geed aad lu gooyaysiin oo kaligiis dawladda ka raba war ninkii dawladda ka dhac horta wax dhaqan xumadan iska dhaafiya war alihiin alla bayah xawaale maxamed oo iska fiiriya kana fiirsada waxaad ka shaqeeyaysiin idinkan ina anfac mayso annagana na anfac ma umadan hiiraan digtana ma anfacayso umadan hiiraan iyo Hirshabeelle la isku yiraahdo oo shaqada dhaxay iyo hiiraan ma anfacayso war midnimo ogolaada walaalnimo ogolaada in wax la wada yeesho ogolaada in la kala ragsanay ogolaada niman idinka badan degan hiiraan niman idinka badan oo tiran idinka badan oo labadii kugu laama degan waa fiiri ilaahan kugu dhaari ee nimankan alxamdulillah idin la dagay hiiraan ayagoo ku faraxsan dhismaha iyo dhaqanka muslim maxaa idinka hadlaysa madaxweyne ku xigeenad leediin oo madaxweynuhu la aati soo shaqay karin maamul leediin laba madaxweyneedii soo martay wiligaan wax warka qaba lama arag hiiraan warka ma qabin ka gobolka Shabeellaha Dhexe warka ma qabin raaxa wala maxamed wax isku fala war wax isku fala ila lillahi war xawaalo wax isku fala aniga wayga talo oday wayga talo walaal wabillahi tawfiiq